بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا إذنك يا أمة الصوماليات ملك السوء جوجتبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب dadku waxaan u maleynayaa inay aad ula socdaan waxa carrada ka socda waxa dalka ka jira iyo arrimaha doorashooyinka ku xeeran waxa saaka dhacay wuxuu ahaa runtii ilaa shalayba ilaa xalayba jiray waxa aad looga xumaado aan loo baahnayn xilligan la joogo 2022 in cidi ay isku daydo inay xoog wax ku haysan karayso ama maalmo ku kororsato ama saacada ku kororsato wax la aqbali kara ma dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inuu ka baxo mushkiladaas si uu uga baxana qori iyo qaylo iyo taayir la gubo iyo problem laga shaqeeyo lagama bixi karo waxa lagaga bixi karaa si degan oo cod loo dhiibto mudanayaasha golaha baarlamaanka maanta halkan fadhiya mas'uuliyadda saaran waxay tahay in ay fahmaan shacabku waxa dhibaatada haysata iyo ayaga xildhibaanada annaga maanta dhibkana soo gaaray oo ah saaka sigis markii la soo kacay ilaa iyo hadda oo ay tahay saddexdii ama labadii iyo xooga ay tahay waxa la wareegaysanayaa intaas airportka iyo agihiisa dariiq walba la taga waa xidhan yahay baabuur baa ku go'an dhagax baa ku go'an waxa laga shaqeynayana waxay yihiin lama garanayo waa kaliya inaan doorasho dhicin kaliya sidaas darteed maanta hadda alxamdulillah howlka la joogaa xildhibaanadu way yimaadeen kuwa kalena waa imaan doonaan caawa ha gaadho ilaa barisba ha gaadho in doorasho meeshan ka dhacdo dalkana uu isbedel ka dhaco taas laga maarmaan waxaan rajaynayaa xildhibaanada Soomaaliyeed hadii alla yiraahdo inay isbedelka u heelin doonaan inay fahmi doonaan fariinta shacabka Soomaaliyeed ay u soo gudbinayaan inay fahmaan dalkan inuu deganaansho siyaasadeed u baahan yahay maanta halkaan doorashada ka dhici doonta laba mid noqonaysa inay buuq iyo qalalaase iyo dib iyo dhibaatada oo halkiisii ka soo socdo iyo in daqiiqadaha resultiga doorashada la soo saaro waddanku uu deganaansho iyo stability iyo maxaan ku iraahdaa nabad iyo maxaan ku iraahdaa farxad uu dadku ku naaloodo labadaas ay kala tahay waxaan xildhibaanada ka codsanayaa inay codkooda siiyaan si waddanku u dego nabad loo helo dhagaxaanta wadada taala looga qaado checkpointooyinka loo qaado awoodda la doonayo in xoog loogu haysto qaranimada Soomaaliyeed ay meesha uga baxdo aad baa u mahadsantahay adiga waxa tahay sharax xildhibaan golaha shacabka guddoon golaha shacabka waqtigiisa dhamaaday waxa jira eedo badan oo loo soo gudbinayo oo ah in ay ku fiirsanayaan dalka dhibaatada adiga maxay tahay waxyaabaha leedahay waa ka qaban kartaa maadaama xilka u shaqeeyo waa mahadsan tahay waxa aan qabanayo ilaahay baa wax qaban kara laakiin waxa aan isleeyahay waad qaban kartaa maalintan khudbadaha baarlamaanka u jeedinaya hadal jeedinteedii bay ku jirtay hadda ma joogno munaasabad aan kaga hadlo waxa aan qaban doono ama waxa aan niyadda igu jira ama maxaan ku wadhaa qorshahayga horaan u soo jeediyay waana heli kartaa meel kasta ku jira waana duuban tahay adiguna waa joogtay waxaan rajaynayaa maanta waa maalintii codaynta anigu waxa aan sheegay si aan u qabto waxa loo baahan yahay ilaahay bay ku xidhan tahay laakiin codka xildhibaanada halka ka soo bixi doonay ku xidhan tahay waana ku rajaynayaa inaan codka heli doono shacabka Soomaaliyeed ee ku weyn baaq ugu dambeeya aad u jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed waa run niyad jabka ay muujinayaan ummadoo dhan bay haysataa annaga laftirka iyaga nagu dhacday oo xildhibaanadii oo codka rag dadkii laga rabay waxa cajiib ah oo dhibaato ah oo mushkilada oo la fahmi karin qof musharax ah oo doonaya xildhibaanadii oo codka ka doonaya ciqaabaya wadooyinka ka xidhaya meelay maraan u diidaya inay isu yimaadaan u diidaya inay maxaan ku iraahdaa kulmaan u diidaya codna ka raba kuwa codka ka rabo sida u galaya maanta codka rabo sida ku galaya markuu codka ka helo soo ku galaya taas loo baahan yahay xildhibaanku fahmaan marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa inay kordhiyaan pressure-ka iyo fikirkooda iyo aragtidooda iyo rabitaankooda inay soo gudbiyaan una sheegaan nin walba xildhibaanka matala iyo gabadh walba ay u sheegto qofka matala xildhibaanka danta dalkan waxa ay ku jirto iyo rabitaankooda aad baa u mahadsantahay